السلام عليكم كلتي وعن دمان صاحبada ku xiran channelka rajadii fanka iyo sidoo kale page-ka aynu ku leenahay barta Facebook ee magaciisu yahay Hari ENT saaxiibada sida quruxda badan ugu xiran mar walba muuqaalada aynu halkaas soo galino aad bay ugu mahadsan yihiin sidoo kale saaxiibada ku xiran page-ka Hari ENT waxaan si aad uga codsanayaa in sida ay ugu xiran yihiin page-ka ay ugu xirnaadaan channelka ama barta YouTube ee rajadii fanka si halkaas aad ugala socotaan muuqaalada iyo warbixinada aynu halkaas soo galino sidoo kale saaxiibada ku xiran bartayda page-ka Facebook waxaan u sheegayaa dadka daawada muuqaalada aan soo galiyo barta page-ka Facebook iyo dadka daawada muuqaalada aan soo galiyo channelka rajadii fanka in aad ay u tiro badan tahay dadka daawada muuqaalada ama clipska aan soo galiyo page-ka Hari ENT laakiin waan rajeynayaa in codsiga aad ii aqbashaan oo subscribe aad soo dhahdaan channelka rajadii fanka Okay. sidoo kale saaxiibada maanta waxaan rabaa halkan inaan idinku soo gudbiyo ama idinku soo bandhigo marna waa sheeko marna waa xikmad tusaale u ah nolosha aadamaha sheekadaas aad ku quruxda badan ayaan rabaa maanta inaan la wadaago haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee barteena YouTube ama rajadii fanka fadlan taabo calaamada subscribe-ta dhacsi gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto saaxiibada mar waliba ku xiran channelka rajadii fanka iyo sidoo kale page-ka Hari ENT okay wiil ayaa waxa uu ku yiri aabihiis aabe waxaan soo arkay gabar aad u qurxoon waxa ay leedahay indho qurxoon jamaal iyo joogna rabbi waa u dhameeyay aabe waxaan doonayaa in gabadhaas aad ii doonto oo aad ii guuriso odaygii ayaa waxa uu yiri aabe waa arrin aad u wanaagsan haddii aad maanta soo aragtay gabar ku qancisa oo adiguna ay ku qancisay waan kuu doonayaa oo gabadhaas haddii aad jeclaatay reerkeeda waa u tagayaa si labadiinu aad isku guursataan balse marka hore gabadha aan arko odaygii ayaa waxa uu la kulmay gabadhii dabadeeto wiilkiisii ayuu ku soo jeestay arrin la yaab leh baa meeshii ka dhacay odaygii wiilkiisii ayuu wuxuu ku yiri aabe gabadhani kuma qalanto oo waxa ay u baahan tahay nin wax garad ah sideeda oo kale wiilkii oo la yaaban aadna ula yaaban damaca aabihiis ayaa waxa uu go'aan ku gaaray in gabadha isagu uu guursado aabihiisna uu iska dhiciyo si gabadhu isaga ay ugu xalaalowdo odaygii iyo wiilkii muran dheer kadib waxa ay ku heshiiyeen in ay isla tagaan saldhigga si sharcigu labadooda u kala saaro waxa loo tagay taliyihii saldhigga joogay si labada nin oo isdhalay ugu garqaado taliyihii ayaa waxa uu yiri bal marka hore gabadha hal i tuso oo gabadhii hal ii keeno si aan u arko taliyihii waxaa la tusay oo loo keenay gabadhii si taliyuhu uu labada nin ugu kala garqaado taliyihii mar alla markii uu gabadhii isha saaray ama ishiisu ay ku dhacday waxa uu yiri labadiinuba uma qalataan gabadhan waxa ay u baahan tahay nin sharaf leh oo sideeda oo kala ah haddaba arrintii halkii ayay ka sii socotay waxaana go'aan lagu gaaray in loo gardhigto oo loo tago duqay magaalada markii loo tagay isna waxa uu dalbaday in loo keeno gabadha si uu arko balse markii uu gabadha indhaha saaray wax badan ayaa isbedelay oo waxa uu ku yiri gabadhan waxay u baahan tahay ama u qalmaayo nin sharaf leh oo mas'uul ah oo sideeda oo kala ah markaan sheekada waa ay tallaabsatay oo waxa ay gaartay boqorka magaalada oo ah nin aad looga dambeeyo boqorkii ayaa waxa isugu yeeray Allah baa boqoray 4 nin isagoo 4 ninba isugu wada yeeray 4 waa ay wada yimaadeen kadib markii uu gabadhii arkay ayuu jawigiisu isbedelay isna boqorkii oo waxa uu yiri yaa idin yiri gabadhan haweysta aniga oo nool what the fuck 4 nin mid buu eegay arrinkii waa isbedelay meeshii dagaal culus ayaa ka dhacay 5 ninba madax ayay isla galeen oo meesha ay isku qabsadeen oo marxalad kale ayaa meeshii ka dhalatay okay markii ay sheekadu halkaas marayso gabadha ayaa waxa ay tiri aniga ayaa idin kala saaraya oo idin garnaqaayo okay ay yiraahdeen gabadhii waxay tiri aniga waan ordaya qofkii soo qabta ayaa i guursanaya oo aniga nafteeda hananaya Okay. 5 ninba go'aankaas way ku wada qanceen waxay yiraahdeen ninkii soo qabta ayaa gabadhan guursanaya gabadhii way oraday
shantii ninba way daba carareen qalanjadii iyada oo ordaysa. sidii ay u daba cararayeen shantii ninba waxay ku dhaceen godweyn. gabadhii intay u soo laabatay godkii ay ku dhaceen ayay soo dul istaagtay. waxa ay ku tiri may taqaanaan aniga qofka aan ahay. waxa ay ku yiraahdeen maya. waxa ay tiri waxaan ahay adduunyo, dadku way daba cararaan, way i raadiyaan, wayna igu loolamaan si ay aniga ii helaan, balse waxaan jirin cid iga daba cararta oo guul dhab ah iga gaarta. ugu dambeynna iyagoo iga daba cararaya sidan oo kale ayay god ugu dhacaan. hagaag waa sheeko iyo qiso aad u cajaa'ib badan, meel dhowna wax kaa tusaysa. waana rajaynayaa in dhammaantiinba aad xikmadan si wanaagsan aad u wada fahanteen. fadlan saaxiibada ku xiran page-ka Harry ENT waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa in sida page-ka aad ugu xiran tihiin followna aad u soo dhahdeen, aad subscribe u soo dhahdaan barta YouTube-ka ee Rajadii Fanka. dhammaantiin aad baad ugu mahadsan tihiin daawashadiina. fadlan like, subscribe and share. ku sii waxba idinka tarimayse. aad u mahadsantihiin.